ninkaan shir iyo heemaar lahayn sharaf ka dheeraaye karuu showlay caanaha shamaal looma soo shube shacabkana ma dhaafo badduu shaba ku tuurtaaye salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibadeenna sharafta badanow maantana waa maalin kale iyo barnaamijkeennii ka sheekaynta dhaqanka iyo weliba meesiyada kala duwan ee soomaalidu dhaqato waxaynu ku soo guda jirray barnaamijkii ka sheekaynta waxtarka geela waxaynu ka soo samaynay 4 barnaamij oo kala duwan waxaynu ku horreeyey barnaamijkeennii koowaad ee ahaa ka sheekaynta caanaha geela iyo waxtarkooda waxaynu ka soo hadalnay barnaamijkii hilibka geela iyo waxtarkiisa waxaynu kaloo soo qaadanay xagga sida magta loogu bixiyo iyo khilaafaadka bulshada ka dhex dhaca sida geelu waxtarka weyn u leeyahay una xalliyo waxaynu ku dambeeyey oo barnaamijkii afraad ahaa sida geela yaradka loogu bixiyo iyo isdhexgalka bulshada siduu qaybta weyn uga qaato waxaa maanta barnaamijkeena shanaad ah oo aan ka hadli doonnaa haddii eebaweyne idmo waa sharafka iyo magaca geelu sameeyo saaxiibadana sharafta badanow waxaan idinka codsan intaa barnaamijka u gelihin inaad barnaamijka sheergaraysaan asxaabtiina aad la wadaagtaan bulshada xoola dhaqatada ah waxa ay rumaysan yihiin oo 100% aaminsan yihiin ninka iskale kedinka geela ama 100 halaad sida loo yaqaan inuu gaaray kaalintii hodantinimada sida loo kala geel badan yahay baana loo kala hodansan yahay helidda ama dhaqashada 100 halaad ma ahan arrin fudud oo si sahlan loo heli karo sida helitaankeedu adag yahay ayaa dhaqashadiisa iyo xanaanintiisuna 100 halaad ay u dhib badan tahay ninka geela badan bulshada xoola dhaqatada ah ee uu ku dhex nool yahay waxa uu ku leeyahay sumcad iyo sharaf aan la soo koobi karin haddii uu joogo iyo haddii uu maqan yahaba waxa uu leeyahay cod aad loo qadariyo oo marnaba aan la dhaafi karin waxaa qiimahaas qofnimo gaarsiiyey waa hantida geela ah ee uu leeyahay taasoo beesha uu ka tirsan yahay ay col iyo nabadba ku xisaabtamaanin dad tiro badan oo leh xidid xigto sabool iyo culimo iyo wixii la midaba ayaa goori ayaanba aan laga waayin agtiisa taasoo ah wax uu beesha kaga gudban yahay waxaa kale oo uu leeyahay oo loogu xisaabtamaa ninka geela badan marka beesha dad ka mida ay waxlaayaan oo laysaga baahda mag waxaa mahuraana oo aan la dhaafayn in geeliisa iyo geela kale ee beeshu leedahayba lagu bixin karo magtaas lahaanshaha geelu haddii uu keeno xushmo iyo magac aad loo tixgeliyo aadna looga dambeeyo oo mararka qaarkood aan go'aamaba la gaari karin waxaa lagama maarmaan ah nin walba inuu raadiyo taabtuu geel ku tabcan lahaa ragga geela hodanka ku ah sida badan qabya isla weyni ayay la hagogtaan waxaana arrintaas abuurta waa hodanka uu geela ku yahay waxaa dhacdaa rag kale oo ka ra'yiyey talo wanaagsan in lays hilmaansiiyo oo ninka geela hodanka ku ah lagu daro ragga xaajagalka ah waxaana awooddaas siiyey waa lahaanshaha geela oo qaali ku ah bulshada xoolodhaqatada dhexdooda haddii aynu soo qaadanno waxa ay ka tiri sugaantu ninka geela leh meeshuu isla joogo iyo heerku geelu uu qofka gaarsiiyo ismaaciil mere allaha u naxariistee waa gabyaagii weynaaye oo tilmaamayba ninkaan geel lahayn inuusan wax sharaf ah bulshada dhexdooda ku lahayn ayaa waxa uu yidhi ninkaan shirib iyo heemaan lahayn sharaf ka dheeraaye karuu show leh caanaha shamaal looma soo shube shacabkana ma dhaafo badduu shaba ku tuurtaaye shuqul gaalo kama maarmo oo shaaxu kariyaaye abwaanka ayaa meerisada kooban ku soo qaatay in geelu qofka uu ka dhigo meel sharaf meesha ugu sarraysa ninkaan geel lahaynna waxa uu ka dhigay in aan sharaf lahaynoo bulshada dhexdoodaba aan waxba looga ogeyn sidoo kale waxa uu diray abwaanku dadka danyarta ah oo badda ka kalluumaysta waxa uuna ku sheegay inuu barnaamijkaas yahay shuqul gaalo waxa uu heerkaas u gaarsiiyey dadka shaaxa karsada ama badda ka kalluumaystaba waayo wuxuu ka aaminsan yahay sharafta geela iyo sarraynta meesha uu la joogo waxaan kaloo soo qaadan doonnaa haddii eebbaweyne idmo abwaankii weynaa cabdigalayax oo isna faalaynayay qaabka iyo isla weynida nin kadin geel ah xero ugu jidho waxa uu yidhi abwaanku xerada qooqaarka weyn qadow ka reemayso amaan ubadka qooraansadiyo awrka lagu quuqsho ama duul qaraabiyo martida qaabil lagu sooro qosol iyo hagaag baan maryaha qab isku siiyaaye waa faan meesha u dambaysay iyo sharaf iyo qurux
markay martiyo kuu timaado boqol geela kugu xaraysan tahay ubadku gaar kugu xaraysan yahay qaabil iyo marti ku soo wajahdo oo si wacan loo sooriyeeyo inaad qosol iyo hagaag la seexataa waa sharafta uu geelu ku gaarsiin karo waxaynu kaloo fiirinaynaa erayada geela loo adeegsado geela had iyo jeer waxaa loogu magac daraa hashi dhashay waxaana loo adeegsadaa ereyga ah dir heblaayo tusaale ahaan dir maydhuub dir qaawo iyo dir heblaayo magacaarta u bixiyo hasha waxaa loogu magac daraa firka hooyadeed meesha ay ka soo jeedo inta badan qaalmuhu waxa ay ku rimaan 6 sano ilaa 5 sano inta u dhaxaysa hashu marka ay runto waxay sidkaha qaadi ka dhaa ama ilmaha sidii ka dhaa 13 bilood ama 390 hameen waa inta sidii geelu qaado waxaa loo yaqaan rigta iyo qurbaca marka ay yaryar yihiin hal ilaa bar marxalada u dhaxaysa waxaa loo yaqaanaa aaran waxaa jira marxalado neefku aan bil dhamaysan uu ka soo dhaco ilmuhu ama xanuun ha keeno ama culays kale ha yimaadee neefkii aan bilihii loogu talagalay gaarin ayaa soo dhacaya Soomaalidu waxay tahay dhicis laakiin waxaa jira magacyo kale oo loo yaqaano oo waliba geela gaar u ah afku xooble iyo cabaad dheere iyo waliba erayo kale oo loo adeegsado xoolo dhaqatadu waxa ay sameeyaan si haddii ilmihii u tagay hashi aysan u gurin waxaa lagu sameeyaa hasha 2 siyaalood midkood mid waxaa lagu sameeyaa in neefkii dhintay in maqaar inta laga soo gooyo oo geeda la geliyo mar walba hasha horteeda loo dhigo si hashu u samayso godol oo aysan marnama u gurin sidaas bayna ku irmaan tahay waxaana loo yaqaanaa magaca igar qorshaha labaad waxa weeye oo hasha markii ilmuhu ka soo dhaco si aysan u gurin oo loo maalo loo sameeyo waxa weeye inta neef kale oo hooyis nooshahay lagu sidko oo lagu talo in kaas la ogolaysiyo kaasadaasna ay ku irmaanato qaabkaasna waxaa loo yaqaanaa sidig habka lagu ogolaysiinayo waa process dheer oo loo yaqaano tolin meel walba oo xooluhu ka neefsadaan ayaa laga xirayaa hadday noqon lahayd qalac bishantuur iyo meel walba inta laga xiro ayaa sidaas khasabka waxaa lagu ogolaysiyaa ilma aysan dhalin mana gudhee ilmahaasay ku sidkan tahay oo lagu maalaa saaxiibadana sharafta badanow maanta barnaamijkeennii shanaad ee ku saabsanaa geela iyo siduu magaca u sameeyo iyo waxyaalaha kala duwan oo geelu leeyahay inahaas baynu ku soo koobaynaa waad ku mahadsantihiin daawashadiina saaxiibayaal waxaa mar labaad iyo mar saddexaad baynu ka codsanaynaa inaad barnaamijka sheergaraysaan asxaabtiinnana la wadaagtaan halka youtube-keenna aad subscribe soo leedihiin waxaa kaloo jirta in saaxiibo sharaf nagu leh oo nagu xiray naga soo codsadeen in maalmaha qaar aan ku soo darro barnaamijyo entertainment ah wixii macquul ah waan samaynaynaa haddii alla idmo oo maalin iyo labo waxaan soo dhex gelin doonaa barnaamijyo ay dhalinyaradu xiisaynayaan barnaamijkeena dhaqanku waa lama taabtaan asbuucii 5 maalin ama 4 maalin isagaynu siin doonaa saaxiibadana sharafta badanow waad ku mahadsantihiin daawashadiin waxaan rajaynayaa inaad gaarsiisaan barnaamijkan meelaha shaqaysan What the